Waxaan qorsheeyay inaan islaamka burburiyo, balse waan islaamay. Dunida waxaa soo muslima dad aad u badan, balse waa Ilaahay mahadii. Waxayna ku soo islaamaan siyaabo kala duwan. Qaarkood waxay baaraan diinta, markaas kadib ayay soo islaamaan. Kuwa kalena mucjisooyin ay kala kulmaan diinta ayay ku islaamaan. Kuwa kalena waxay arkaan dhaqamo iyo waxyaabo dareenkooda bedela oo diinta ku saabsan, sidaas ayayna ku islaamaan. Ku soo dhawaada kanalka Qaamuuska Dunida. Audio Jungle. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aad na soo booqatay, fadlan like inoo saar si uu muuqaalka dad badan u gaaro ugana faa'iideystaan. Subscribe inoo saar si aad ula socoto macluumaadka iyo dhacdooyinka caalamka aynu ku soo gudbino kanalka Qaamuuska Dunida. Haddaba maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa qisadeena haweeney qorsheynaysay in ay kacdoon ku kiciso islaamka, kana mid ahayd koox Mareykan ah oo dowladda la shaqeeya oo diyaariya ajandayaal u gaar ah oo ay ku bartilmaamsadaan muslimiinta iyo bulshada muslimku waxa ay u arkaan. Qisadani oo lagu baahiyay website la yiraahdo About Islam.net waxay u dhacday sida tan. Waxaana ka sheekeynaysa gabadhii qisada ay ku dhacday. Waxa aan sameeyay qorshayaal, waxaana ka mid ahaa koox qorshe samaysa. Allana qorshihiisa uu leeyahay. Alle ayaana ah qorshe sameeyaha ugu wanaagsan. Markii aan ahaa dhalinyarada, waxa aan aad ii soo jiitay koox dad ah oo ajandayaal khaldan watay. Waxay lahaayeen welina leeyihiin urur ay isugu tageen shakhsiyaad guuldareystay, kuwaasoo dowladda la shaqeeya balse ajandayaal gaar ah hoosta ku wata oo ah in ay islaamka burburiyaan. Kooxdani ayaa qorshaheeda oo kaliya ama ujeedkooda uu yahay inay islaamka mar walba kacdoon ku kiciyaan ama burburiyaan dadka islaamka wato, waxyaabo qaldanna ka dhaadhiciya. Maaha koox dowladeed sida aan ka warqabo, ayay leedahay gabadhani sheekada ay quseyso. Waxay si isticmaalaan magac dowladnimo si ay ujeedooyinkooda u dhaqaajiyaan. Mid ka mid ah kooxdan ayaa ii yimid waayo waxa uu arkay anigoo u doodaya, dhiirigelinaya, kana shaqeynaya xuquuqda haweenka. Waxa uu ii sheegay haddii aan ogolaado in aan xiriirka caalamka ka barto Bariga Dhexe, in uu shaqo iga siin doono safaaradda Ameerika ee ku taal dalka Masar. Waxa uu iga rabay ujeedka ugu weyn uu iga lahaa waxa uu ahaa inaan halkaas tago si uu ii isticmaalo oo aan dowlad ahaan ula hadlo haweenka muslimiinta ah, kuna booriyo in ay xuquuqdooda u doodaan una dagaalamaan. Waxa ay leedahay gabadha sheekadan ay quseyso. Ujeedka ugu weyn uu halkaas ii geeyay waxa ay ahayd in aan gabdhaha muslimaadka ka mashquuliyo diintooda, waxyaabo qaldan aan uga mashquuliyo. Balse waxaan markaas u arkayay taladaasi inay tahay talo wanaagsan. Waxaan TV-ga ka arkay haweenka muslimiinta ah, waana ogaa in ay sabool u badan yihiin. Waxaa damcay in aan ku hogaamiyo iftiinka xorriyadda qarniga 20aad, taasoo ay macnaheedu tahay in aan waxyaabo qaldan ka dhaadhiciyo islaamkoodana burburiyo haweenka muslimaadka ah. Hamigan dartii si aan u xaqiijiyo, waxaan tagay jaamacad si aan waxbarasho u bilaabo. Waxaan bartay Qur'aan, xadiis iyo taariikhda islaamka, siirada Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Sidoo kale waxaan bartay habka aan u isticmaali lahaa macluumaadka aan helo. Waxaan bartay si hadalka loo bedelo oo aad dadka ugu dhaadhiciyo waxa aan doonayo in aan idhaahdo. Waxa ay ahayd hubayn aad u qiimo badan. Hadalkaasi macnihiisu uu yahay wax walbo aan baranayo, waxaan sii baranayay meeshii ay ku habboon yihiin waxaas aan baranayo. Waxaan kaloo bartay in aan hadal walbo ku hadlayo uu noqdo mid cilmiyeysan oo aanan iska dhihin. Markii aan bartay diinta islaamka iyo dhammaan shareecada ee aan si khaldan u isticmaalay muddooyinkii hore, aakhirkii waxaa igalay dareen xiiso leh oo i jiiday inaan hoos ugu dhaadhaco.
waxa ay galay dareen aad u xiiso badan oo ku saabsan diinta, wuxuuna igu qasbay inaan ugu dhaadhaco hoos dhadhamiyana macnaha dhabta ee dhuuxa islaamnimada ku jira. Macna ayay ii samaysay, cabsi badan baa i gashay. Sidaa darteed, si aan bal arrintan uga falceliyo, waxaan bilaabay in aan dhigto fasalo Kiristaan ah oo markaasi la igu barayay Kiristaanka. Dabcani gabadhani ilaa hadda baaris ayay ku jirtay oo waxay isbarbar dhigaysaa diintani Kiristaanka iyo diinta Islaamka. Balse markaasi waxay u badneed dhinaca Islaamka oo dareenka oo Islaamka uu dareensiiyay diinta Islaamka. Dareenka ay ku dareentay maysan ku dareemaynin diinta Kiristaanka. Waxa aan doortay macallin professor ka ah jaamacadda, weliba karaamo aad u weyn loo qabay, isla markaana sita shahaadada ugu sareysa ee PhD. Gaar ahaan wuxuu jaamacadda loo yaqaan Harvard ee dalka Mareykanka ka dhameeyay cilmiga barashada diimaha. Waxaa markii ugu horeysay aan dareemay in aan gacan wanaagsan ku jiro. Sidaan u maleynayay bay ahayd, balse way isbedeshay oo waxaan islahaa diinta Islaamka waxbaad ka fahantay oo waad qaadan doontaa. Balse macallinka wax ii dhigayay wuxuu aaminsanaa xornimada ama in qof kasta uu raadsado waxa dhabta ee ku habboon. Taasina macnaheedu ay tahay qof walba inuu qaadan karo diinta uu rabo. Ma uusan aaminsanayn laakiin sida ay Kiristaanka kale aaminsanaayeen oo ah in Nabi Ciise uu yahay Ilaah. Balse macallinka waxa uu aaminsanaa in Nabi Ciise uu yahay Nebi. Waxa uuna markiiba ii bilaabay kitaabka Baybalka si fiican inuu ii baro, gaar ahaan inuu i tuso mid luqadda Giriiga, luqadda Yahuudda iyo luqadda Amxaariga ku qoran. Waxaana i tusay sida loo badbedelay. Waxa uu i baray taariikhda Kiristaanku, siday u qaabaysan tahay iyo dhalinroga ku dhacay. Waxa ay leedahay gabadhii qisadan ay ku dhacday, markii aan fasalkaasi dhammaystay waxaa burburtay diintii aan haystay oo ahayd Kiristaanka. Balse waa ay fahantay diinta Kiristaanka iyo diinta Islaamka inaysan isku dhaweyn, farqi weyn oo u dhaxeeyo. Run iyo beenna waxa ay tahay labadooda way u kala cadaatay. Balse laakiin waxa ay dhahday weli diyaar uma noqon in aan aqbalo Islaamka. Subxaanallah. Waxa aan sii waday in aan nafteeda wax u barto iyo nolosheyda dambe. Waxa ay igu qaadatay safarkaas waxbarasho ee marxaladda isbedel marayay muddo 3 sano ah. Macnaha in ay iska bedesho diinta Kiristaanka ay u bedelato diinta Islaamka ee saxda, inay wax u barato, waxay ku qaadatay muddo 3 sano ah. Waxa aan su'aalo weydiiyay muslimiinta qaar ka mid ah, waxyaabaha ay rumaysan yihiin ayaan weydiiyay. Mid ka mid ahaa dadkii aan su'aalaha weydiinayay wuxuu ahaa wiil ka tirsan ururka ardayda muslimiinta ah. Allahu Akbar. Ururkaasi oo la oran jiray MSA, Muslim Students Association. Allama haddii waxa uu markiiba arkay in aan diinta xiiseynayo, wuxuuna ku dadaalay inuu Islaamka si fiican ii baro. Waxa uu fursad kasta uu helo ii soo bandhigi jiray Islaamka, isagoo macno iyo qancin saaraya doodiisa. Wiilkii Muslimka ahaa ayaa habeenada ka mid ah ila soo xiriiray. Waxa uu iiga sheekeeyay koox muslimiin ah oo soo booqda tuulada. Waxa uu iga codsaday in aan la kulmo kooxdaas. Waana ka aqbalay, waxaanu u diyaar garoobay si aan ula kulmo cishaayiga kadib. Waxaa la igu soo dhaweeyay qol ay joogeen 20 nin. Kadib waxaa la ii baneeyay meel aan fadhiisto. Waxa aan si toos ah u wajahay nin waayeel ah oo Bakistaani ah. Allama haddii waxa uu ahaa ninka Bakistaaniga ah nin aad u aqoon badan oo diinta Kiristaanka aad u yaqaana. Aniga iyo isaguba waxaanu ka doodnay waxa ay ku kala duwan yihiin Qur'aanka iyo Baybalka. Ilaa intii salaada subax laga gaadhayay, doodaydu waxa ay ahayd mid cilmi ku dhisan oo waa la isqancinayay. Dabcan doodana maysan ahayn mid hadal oo kaliya, balse waxay ahayd mid daliil wadata iyo tusaaleyn. Taasina waxay ka mid tahay shuruudaha dooda. Dadka oo aqoonta leh ayaana yaqaana. Markii aan in badan dhageystay ninkan caqliga badan, waxa uu xitaa ii sheegay
waxyaabo badan oo aan fasalkii kiristaanka intaan dhiganayay ku qaatay. Waxa uu iigu baaqay in aan muslimo, taasoo aan cid hore igula soo dhiiran. Markii uu waxyaabo badan iiga sheekeeyay, waxyaabo badanna aan hore u soo arkana iisii sheegay oo si fiican ii fahansiiyey ninkan aqoonta badan, ayaa haddana wuxuu iigu baaqay in aan diinta islaamka qaato, laakiin cidna hore imaysan iigu baaqin taas. Muddo 3 sano oo aan baadhitaan iyo cilmi baaris ku jiray, cidna hore iguma baaqin in aan muslim noqdo. Waa la i caayay, waa la ila dooday, balse ma helin baaqan oo kale. Macnaha ninkan Bakistaaniga oo muslimka ah wuxuu iigu baaqay cidna hore maysan iigu baaqin. Dadkii hore waxay ahaayeen kuwo ila dooda oo keliya, qaarna i caaya. Kadib waan fakiray, wayna i taabatay arrintiisaas ninka Bakistaanka. Horena waan u soo dhawaaday oo faham badan baan diinta ka qaatay oo waan bartay. Balse hadafkii marka hore aan u barto waxay ahayd inaan kacdoon ku sameeyo burburiyo. Balse waan xaqiiqsaday in ay tahay waqtigan kaan sugayay. Waxa aan ogaa in ay tahay runtii aan doonayay, waxaanay noqotay in aan go'aan qaato. Alle mahadi waxaa furmay qalbigaygii. Waxaan idhi waa yahay, waxaan doonayaa in aan muslim noqdo. Allahu Akbar. Waxaa markiiba la ii qabtay shahaadada oo aan Ingiriis iyo Carabi labadaba ku dhawaaqay. Markii aan ashahaatay waxaan dareemay dareen aanan weligay arag. Waxa ay fuulay culays jir ahaaneed oo dhinaca laabta ah. Waxa igu adkaatay neefta sidii oo aan markii ugu horeysay adduunka korkiisa aan ku neefsado. Waxayba ila noqotay in ay tahay markii ugu horeysay aan adduunka korkiisa ku neefsanayo. Alxamdulillaah, Alle ayaa i siiyay nolol cusub. Waan daahiray, fursad aan jannada uga faa'iidaystana waan helay. Waxaan u tukaday sidii inaan noolaanayo inta nolosheeda ka hadhay, muslimnimana ku dhimanayo. Ayay ku soo gabagabaysay qisadeedii gabadhani u dhalatay dalka Mareykanka. Halkaas ayayna ku eg tahay qisadeennii xiisaha badneed ee maanta aynu ku soo qaadanay. Ciwaankeedina ahaa waxaan qorsheeyay inaan islaamka burburiyo, balse waan islaamay. Sidaas ayayna ku islaamtay gabadhii. Alxamdulillaah calaa nicmati alislaam wal iimaan. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aadna soo booqatay, fadlan like noo saar muuqaalka si uu dad badan u gaaro. Subscribe noo saar si aad noola socoto xogaha muhiimka iyo dhacdooyinka caalamka aan ka soo gudbino. dib intaan u kulmi doono barnaamijkan mid ka xiiso badan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.